الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استمرك إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي ما هذا كليه ما هذا وحكى ما هنقي وحوي عد على عد كسر شقيسي هشيس كان إيو odayaashii guurta ahaa guurta ka soo shaqaysay mediationka ahaa iyo akademiyada way aad u mahadsan yihiin waxaa isna mahadle anigu xoog baan u saarnay arrintan inay doorasho dhacdo haddaan cudnahay anuu shakhsi ahaana wiigii u dambeeyey ilaa 9 qof baan u diray in la joojiyo arrintan 15 bisha khudbadii madaxweynaha taasoo arkay wax aan suurtagal aan ahayn laana waa mamnuuc sharcigu ma sheegayo in la isku adeegsado awoodda madaxtooyada in la isku muquunsho in dimuqraadiyadda absolute power ma jiro dimuqraadiyadda waxa weeye check and balance baa jira sharcigaa lagu kala socdaa marka waxaan arkaynaa anagu in arrintaasi tahay arrin laga tegey issue la isku hayay oo noqotay shakhsi weerar iyo shakhsi iska celi ee noqotay heshiiskani waa guul maanta Soomaaliya u timid Soomaaliya guusheedu waxa weeye inay doorasho dhacdo adduunkana inaga sugiyay inaga danteena waxaa fadhiya halkan golayaal aan sharci ahayn muddo dhaafay dalka wax alle wax ugu sugayaan jir anagu madaxweyne horena waan kula shaqaynaynay waxaan jecelahay in marku dhamaado khilaafka la joojiyo taladu waxay ku fiican tahay in la wada yeesho aday qofka talada adaa ku banaad uma baahnid waxaan jecelahay haddaanay jirin harmonization asxaabta iyo executive ka dhaxeeya oo aan isku caloolsameen inuu khilaaf soo noqon doono issues waa la isku qabtaa waa lagu murmaa laakiin ma jirto hatred iyo findafdaf iyo cadaawad waa laga saaraa saasaan ku shaqayn jirnay saasaan intaasoo madaxweyne kula soo shaqaynay waxaan jecelahay in Soomaaliland waxay ku caanamaashay ahayd ismaqalka wada shaqaynta dadaalka ka dayna khilaafka at least ka dayna haddaan deliver gareynin baahidoodii inaynu dushooda isku haysta ka dayna anagu waxaan kula diyaarnay madaxweyne inaanu kula hirgelino wax alle waxaad nooga baahan tahay labada xusbina aan kula diyaarnahay international waxaan jecelahay inay wada roolkooda ciyaaraan wixii ku soo qayb gala xagga dhaqaalaha keenaan ayaan diyaar aan idanka codsanayaa waxaan wax ku noqon karnaa wada jir waxaan yoolkeena ku gaari karnaa wada jir waxaan dadkeena hor u marantaa wada jir rag isma celiyaan baa la yiraahdaa waxaan jecelahay inaan isgarab galo dhalinyarteena niyadda u dhisno dee wixii dadku inaga sugayeen qabano sharciga ilaalino sharci haddaan lagu kala socon ما إيمان سخير وإيمان شرعي إلى ليسكت دايا انترست كشخصية قبيلة ليسكت دايا أنا يا عبد الرحمن لو حسبك على السياسة بانهاي هذا يدا أنو إسكولير أبسطنا هاي ذكر السياسة بانهاي ما كان أنا قال نوع أركانها ما كان لا حوا إسكولير نقولنا لو إنه إسكوليرة يلا نوع أركانها ده مدة 20 وأنا institution أنا آمنة يعني لو أبترين يعني لنا وارس family بين نقولنا يعني أنا كلا قان رئيس عملاء ما هو كم هاد سنتي يعني هنا كم هدي جماعة قبضنا نيو بيتش عن بلابنا أنا وحيد تركوا ما قبلنا أين هوشة وكل قبلنا قال لا وحي واجب كان إن شاء الله له وكوف دونا ولا أذوق سارين أنت بدني أنا وأنا قرب تاجنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa munaasabadan maanta aynugu nimi
curinta heshiiskan maanta ay hor yaalla kaasoo suurto geliyey inaynu isfaham intii hore ka dhow isugu nimaadno iyadoo xalku yahay in doorashooyinkii golaha wakiilada iyo deegaanku inoo qabsoomaan sanadkan aynu ku jirno gudihiisa runtii dadaal badan baa jiray oo dad badan ay sameeyeen ama axsaabta ahaadaan ama bulshada waddaha ka tirsanaadaan oo doonayey in caqabadan doorasho la-aanta laga gudbo iyo muranka siyaasiga ah ee inagu raagay axsaabta iyo xukuumaddaba waxaan si gaara u xusayaa runtii madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saydici aan is leeyahay iyadoo in badan in la wadaagtay aada buu ugu dadaalay in arrimahaasi isfaham iyo guul ku dhammaadaan de guddigii dhexdhexaadinta laftooda way dadaaleenoo heshiiskoodii waxbaynu hadda ka qaadanay halkan iyaguna runtii waa mahadsan yihiin waxaan kaloo jecelahay maalmahan ugu dambeeyey inaan xusaabtigay cali ibraahim oo isna aada u dadaalay maalmihii ugu dambeeyey waxaan runtii dee shalay waxaynu haynay wax kale maantana oo ah in doorashadii aynaan rajo badan ka qabin laakiin ama urur la furo ama hawl kale la galo laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin waxaynu kusoo noqonnay inaynu u wada guntano sidii aynu uga midho dhaalan lahayn doorashadii inay qabsoonto axsaabta way ka go-an tahay sidaa adiga kaga gaantay madaxweyne in doorashadii la qabto waxaana rajayneynaa in heshiiskani uu noqdo midaynu ku guuleysano sulxu xudaybiya noqdo insha allahu kii aynu kaga baxaynay murankii iyo in doorashooyinkii noo qabsoomaan noqdo ka duwanaado kulamadeenii hore iyo heshiisyadeenii horeba insha allahu heshiiskan waxyaabo ku cusub dee somaliland baa ku jira guddi qura inoo qaban jiray doorashada laakiin maanta waxaynu ku heshiinay si doorashada inoogu qabsoonto oo xeegana xeega u noqoto ilkana u nabad galaan in commissionka jiraana jiro guddi kalena oo isugu jira commissionkii hore ee qaranka iyo ajanabiba ay noo qabtaan doorashadii madaxweyneedkooduna uu ku dhammaanayo unsaan heshiis ku qoran saan filayo markay doorashadu natiijadeedu soo baxdo waan soo dhaweyneynaa heshiiskaas waxaanan ku rajo weynahay inuu noqdo heshiis aad looga banaan degay oo aan insha allah waxbay nagaga soo noqon oo shuruucda loo eegay oo caqabado sharciyo dambe inaga hor imanayaana aanay jirin waxaa inoo waajibahuun sida heshiiska ku qoran maanta u dhaqan gelaya marka la saxeexo marka diyaar baanu nahay wax kastoo nagaga soo aada hawshaa fulinteeda iyo dhaqangelinteedaba waxaan rajaynayaa waktigaa aynu qabsanay 2020ga inay doorashadii noogu qabsoonto aada iyo aad baad umahadsan tihiin halkan xisbiga kulmiya iyo xukuumaddu waxay u yimaadeen in xal loo helo oo mudnaanta doorashada la siiyo waxaanu doorbidaynaa inay doorashada baarlamaanka iyo dowladaha hoose ee isku skan inoo qabsoomaan haddii aad qoonsanteen waxaanu qabanayna taas baanu u soconnaa haddii idin aad tidhahdeen doorashadaasaanu anaguna u soconnaa sida isoo gaadhay anuna taas baanu doonayna maantana waxaan jecelahay in badan baynu ku wareegeysanay inaynu doorashada awoodda saaro
marka koofiyadaas waa tii kulmiye saasaanu heshiis ku nahay halka waxay anaga ii dheer xeerarka dalka u yaalla kulmiye ma wada saaree anigu isaanay inaan aliyo anoo dhex waa xisbiyada oo dhan anna waxaan kan doonayaa inaan ka caddeeyo marka ay tahay awoodda dowladda iyo ilaalinta xeerarka inaan dhex kahay xisbiyada si aynu shaqada wada qabanno markaynu boolatiigayno xisbi loo eegayo koofiyadda xisbiga waa halkeeda laakiin inaanan taa ku gudbinin xeerarka qaranka inaanan ku jirin xisbiyada kale waan yaqiinsanahay ilaahay hortiina waan ku dadaalaya inaan taa dhex ka ahaado saaxiibadina waxaan doonayaa inay ila dareemaan taha oo haddii aynu sharciga ku muranno aanan u xaglinayn dan xisbiga kulmiya aan leeyahay malaha ta qaranka yaan la dhalaan beritaa la noolaan saa duma hawsha la wadaya war xeerka aan ilaalin maayan wixii aad igu qoonsataa intaa waxa weye mawduuca inoo yaallaa waxaanu maanta doonaynaa inaynu si detail u dhammayno inu ka heshiino ra'yigaa fariin ahaan igu soo gaaray inaan qaadateen oo inaa inagu ka wada hadal oo ahaa ra'yigii ka soo onkamay qolada odayaashii hore waxay idhaahdeen iyo la isku daray iyo kuwii dambe qoladii akaadimiyada ee aqoonyaanka ra'yigaa ay soo beeska u lahaadeena ah guddidii hore oon looga maarmayn waaye arag farsamo iyo labada xisbiya mucaaridka oo maanta iyaga aaminsan iyo guddida sharciga ku dhisan oo aan waaye arag badan lahayn idinkuna a ka biyadiidantihiin inay dhibaatada taataan filaya sharciyan markaanu eegno waxaynu u baahan nahay si ay sharcigu u jiro inoo horgasho in labadii la iswaafjo la socodsiiyo oo kuwii aad rabteenna la keeno waayo arnimadii aaminada ku qabteen kuwii sharcigana aan la burburin karin yaatana labadaa aynu iswaafajino oonu doorashada qabsano ra'yigaanu u fadhina halkan waa kaa kii baynu gudagelaynaa waa isu dulqaadanaynaa waa isriixriixanaynaa wixii danta qarankuna ku fadhi doorashaan kulayna waa gaaraynaa dee doodan aan isku annagu intaasaan meesha la nim markaa waxaan leeyahay midun baan saxayaa oo guddoomiyaha wacid wadadii aanu qaadaynu aan askaran sharcina way ahayd saxna way ahayd ummadduna way soo dhaweysay ciidina iskumay taarsanaysa haddii waddada xurto sharci baa la raacaa sharciguna waxaa war nimankii xisbiyadii hafgaran waaye haddaba dee xisbiyadaha la furo ila dadku doorasho la-aan maaye hadday xisbiyadu heshiiyaan baarlamaanka amadid ma geyn karo waana tan kuwada fadhino marka halkana inaynu dee wixii badnaa haddii sharci la eegayo oon sharciga aanan dul qaadanayna de maba inaa wada fadhina ila shala adiga cadgala khaandhale weeyaanoo dalku khiyaameeyey haddana waa ku soo dhaweynaye dee dulqaadka dhan kala eeg marka sharciga waynu ku dadaalaynaa waxaa dee dulqaadkuna waa kaanu kula joogo